Assalaamu calaykum. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sheekada kooxda loo yaqaan Omega. Waxaan ka sheekeyn doonaa dhacdooyin ay suurtagal tahay inay dhacaan mustaqbalkan aad u fogeyn. Kooxda Omega xubnaha ka tirsan waxay isugu jiraan xubno aad u karti badan haddana aad u dhiifoon. Waxay ka kooban yihiin injineero, designers ama sancoolayaal, sidoo kalena cilmi baarayaal ahna dad looga dambeeyo majaalka ay markaas barteen. Mid kastana uu yahay mid hormuud ku ah waxa uu bartay markaas. Ujeedkoodu wuxuu ahaa inay gacan weyn ka geystaan horumarinta mustaqbalka aadanaha. hase yeeshee shaqada Ludwig waxay ahayd mid aad khatar u ah. Haddii barnaamijkan kombiyuutarada ay horumarinayaan uu gacanta u galo dad aad u niyad xun, wuxuu noqon lahaa mid cawaaqibadiisu aad u xun tahay hubaashii. Haddii aan taariikhda wax yar dib u milicsano, mashruucii caanka loo yaqaanay mashruucii Manhattan waxaa la soo keenay hal meel dadkii markaas la joogay ugu maskaxda badnaa, ugu garaadka badnaa, ugu aqoonta badnaa, laakiin natiijadu maxay noqotay? Dabcan waxay noqotay horumarinta bambadii nukliyeerka ahayd caanka ahayd ee burburisay dalka Japan ama gaar ahaan magaalooyinka labada magaalo loo yaqaano Hiroshima iyo Nagasaki. iyo dabcan hormuud u noqon kartay ama horseedi kartay dagaal aan dhammaan kaasoo sabab u noqon lahaa ciribtirka aadanaha dunida saaran maanta. Haddaba si looga hortago mid la mid ah cawaaqib xumadii ka dhalatay mashruuci Manhattan, waxa barnaamijkan iska dhaaf shirkadaha laga qarinayay dawladaha. Mashruucaas oo ahaa markaas midka ay ka shaqeynayaan kooxda Omega. Barnaamijkan ay hormarinayeen teamka Omega wuxuu ahaa mid ay ugu yeereen magaca Prometheus oo ah barnaamij ku shaqeynaya garaadka macmalka ah. Dabcan barnaamijkan ay sameynayay wuxuu ahaa mid ka duwan barnaamijyada ay markaas sameynayay shirkadaha la jaalka ah ee teknolojiyada ka shaqeeya ee markaas jiray. Kooxda Omega barnaamijkan waxay ugu talagaleen inuu noqdo mid horumariya garaadka macmalka ee aad u qotar dheer. barnaamijkan garaadka macmalka ee qotada dheer dabcan wuxuu ahaa mid aan lahayn xirfadaha asaasiga ee qofka insaanka ama bini'aadamka leeyahay. hase ahaatee ujeedkoodu wuxuu ahaa inay ku tababaraan hal dhinac ama hal mowduuc oo aad si qoto dheer ugu xeel dheeraado. barnaamijka Prometheus ee ku shaqeeya garaadka macmalka wuxuu awood u lahaa inuu sameeyo barnaamijyo kale oo ku shaqeynaya garaadka macmalka, yacni makiinada sameynaysa. haddii uu soo saaro barnaamijkan makiinad kale oo ka caqli badan, wuxuu awood u yeelanayaa inuu barto wax kasta uu rabo markaas oo u baahan yahay barashadeeda. subax jimcaha saacadu markay ahayd 9 subaxnimo, kooxda Omega waxay go'aansadeen inay bisinka u qabtaan koodhkan, yacni barnaamijka Prometheus oo dhammaystiran isla markaana ay riixaan badhanka ambaqaadka. Prometheus wuxuu bilaabay inuu ku dhex daarmo kombiyuutarka qol xiran oo hawo fiican leh. kuma aysan xirin internetka sababa amni awgeed, laakiin waxay ku rakibeen nuqulada bogagga internetka ee hadiskeeda kombiyuutarka ku jiray. bogaggan oo ka koobnaa Wikipedia gabi ahaantiisba, kanaal xayna oo YouTube-ka ah iyo dhowr safxo oo Twitter-ka iyo Facebook-ka laga leeyahay. macluumaadkan inuu isagu isku tababaro ayay ugu talagaleen isagoo adeegsanaya habka loo yaqaan machine learning ama makiinada wax isbara. habka macluumaadkan oo dabcan ah kuwa ay shirkadaha kaleba adeegsadaan si ay ugu tababaraan makiinadaha ay horumarinayaan. xubnaha kooxda Omega qofna umaysa sheegan ama asxaabtooda lama isa wadaagan waxay ka shaqeynayaan. taa beddelkeeda waxay dhaheen asbuucan waxaan ka qayb galaynaa barnaamij ama xaflad ay soo abaabushay shirkaddan ka shaqeyno. taasna waxaa loo maleynayay dad fasax ku maqan ee barnaamij caynkan oo kala ah inay ka shaqeynayaan qofna oo warba uma hayn. ambaqaadkii barnaamijka Prometheus waxay kadib natiijooyinka ugu horreeyay soo saaray kuwa lagu qancay ama si loo rabay maysan ahayn. dabcan qaladaad badan baa ka buuxay, laakiin barnaamijkan maadaama uu yahay mid ku qaban kara sikimo shaqo loogu talagalay 10 sano, isla markii waxa u suurta gashay inuu khaladaadkiisa saxo oo natiijada laga rabay mid u dhow keeno. daaritaankiisa hal saac ka bacdi, yacni saacadu markay 10 subaxnimo, wuxuu sameeyay noociisa labaad ama versionkiisa labaad. dabcan wuxuu ahaa mid kii hore ka fiican, laakiin weli natiijadii la rabay aan gaarin. haddana sidaas oo ay tahay sidii aan ku soo xusay muuqaaladeedii hore, garaadka makiinadaha aan sidaas u qoto dheerayn ee amidka hadda version 2 ee barnaamijkan waxay ka sareeyaan maskaxdii ku rakibnad gaarayaasha isku wadaya ee Tesla iyo Pony.ai. Prometheus uu heerkaas u gaaro wuxuu barnaamijka u baahnaa inuu gaaro heerka 5aad. taasna dabcan wuxuu ku gaaray isla maalintii saacada 2 duhurnimo, yacni 5 saac kadib markii la shay barnaamijkan. barnaamijkan isku horumarinay markay arkayeen teamka Omega oo dabcan barnaamijkan abaabintiisa soo korintiisa lahaa dhakafaar iyo fajac ayay ku aad hubaashi. way barnaamij wax yar ka hor bilaabeen koor yar ay qoreen ahaa 5 saac gudihiis ahaa mid asoo si horumarinaya oo barnaamijyo kala soo saaraya. feedkii Prometheus noociisa number 10 ama version 10 wuu diyaarsanaa. kooxda Omega waxay go'aansadeen inay u gudbaan wejiga labaad ee qorshaha marxaladda lacag samaynta. dukaankooda ugu horeeya ee target ka dhiganaya wuxuu ahaa Mechanical Turk waa barnaamij website online ah oo ay leedahay shirkadda Amazon soo saartay sanadda 2005. barnaamijkan ama website-kan ayaa ah mid dunida dacaladeeda afarta dad ugu kala imaadaan kaasoo ay ka shaqeystaan. ha noqoto sawir qeexid, website wax laga bedelo, muuqaalo qoraal loo bedelo, cod loo bedelo muuqaal, intaba ha ahaatee shaqooyin caynkaas oo badan oo kala duwan meel laga qabto weeyaan. qof kastoo xirfad leh, qof kastoo wax isku, qof kastoo kombiyuutar isticmaal yaqaan ama xirfad aqooneed leh oo dadka ka faa'iideysan karaan ayaa ka samaysta konto taas oo dadka kale ay lacag ku siiyaan shaqana ku qabto.
Prometheus wuxuu ku soo galay website-kan magac been abuura dabcan kaasoo akoontooyin been abuur u sameeyeen tiimkiisa Omega wuxuuna bilaabay inuu qabto hawlo caadi ahaan ay dadku qabtaan daama Prometheus shaqooyinka uu u qabanayo si la mid ah qof khabiir ah cidna ma fahmin inuu yahay barnaamij garaad macmal ku shaqeynaya qof kasta wuxuu u maleynayay inuu yahay barnaamij sax ah ama qof sax ah oo shaqada fulinaya si kastaba ha noqotee markii tirada shaqooyinka la qabanayay ay kordheen kombiyuutarka Prometheus ee ka shaqeynayay wuxuu noqday mid aan ku filnayn systemka marka lagu shaqeynayay kooxda Omega ayaa markaa kireysatay kombiyuutarro online ah iyagoo adeegsanaya adeegyo kale oo loo yaqaan Amazon Web Services oo dabcan meel ku save gareysan kartid website-dada kale adoo u baahan inaad server soo dhigatid ama meel wax ku geeytid xogtaada gurigaaga soo dhigatid taasoo ay ku isticmaalayeen kombiyuutar virtual ah ama kombiyuutar ku jira online taasoo u sahlaysay inay hawlo badan ku qabsadaan ayagoo aanan kaydad fara badan ee warehouse-kooda ama gurigooda soo dhiganayn haddaba $1 kasta oo ay halkan ku qarash gareeyeen waxay ka sii faa'iidayeen $2 shaqadii uu qabtay Prometheus maalgashi ku samayso adeegyada Amazon oo haddana adeeg kale lacag ka samee waa cajiib waxaan filayaa xitaa Amazon ku dhiisa kuma soo dhicin fikirkaas waxay kula tahay haddaba si raadku u baabiyaan oo loo garan waxay ugu talagaleen tiimka Omega inay sameeyaan kumanaan kun oo kontooyin kuwaasoo ka dhigaya ama systemka markaa jira ee Amazon wareerinaya kana dhigaya mid sax ah ama dad kala duwan oo shaqada soo galaya saana loo fahmay waxaanu program yahay halka faa'iidada uu sameeyay Prometheus ay si laba jibaarmay jirtay 8 saacadood mar muddo kadib markii tiradii hawlihii ay ka qabanayeen mechanical turki ay buux dhaafeen waxay ogaadeen inaysan habkan ku kasban karin wax ka badan $2 milyan maalintii laakiin xitaa lacagtan ayaa ku filnayd in lagu maalgeliyo marxaladda xigta bilowgii mashruuca kooxda Omega waxay bartilmaameedsadeen maalgashi keeni doona faa'iidada ugu badan ama ugu dhaqsaha badan shuruuc iyo qawaaniin kala duwan awgeed ayay xisaabta ku darsan inay ka shaqeeyaan suuqa saamileed baysan ku xisaabtameen waxay u baahnayeen inay helaan product ama walax ama adeeg lagu horumarin karo garaadka macmalka waliba kaasoo si fudud lagu sameyn karo dabcan product caynkaas way jirta ama alaab noocaas suuqa way taallay dabcan waxaan ka hadlayaa ciyaaraha ama computer gameska Prometheus wuxuu awood u lahaa inuu horumariyo ciyaaro ama computer games soo jiidanaya xiisaha iyo dareenka insaanka wuxuu awood u lahaa inuu 24 saac gudaheed ku sameeyo ciyaaro qabatin ku sameynaya qofka ama xiisaha dhalinyarada ama dadka marka ciyaaraha soo jiidanaya dhanka kale gameka caanka ee ciyaaraan teamka Omega qudhoodo ee Elder Scrolls ayaa ahaa mid 2011 marka suuqa la soo galiyay sameeyay $400 milyan faa'iido dakhli asbuuc ugu horeeyay haddaba barnaamijkan Omega ama teamkan Omega hormariyay Prometheus wuxuu awood u leeyahay barnaamij noocaas oo kale inuu ku horumariyo 24 saac gudaheed iyadoo la adeegsanayo kombiyuutarada online-ka ee Prometheus kireysatay 24 saac gudaheed ku horumarin karay ciyaar aad u soo jiidasho badan oo dad badan qabatin aad u sareeyo ku abuuri lahayd markii gameskan suuqa lagu soo fasaxo kadibna wuxuu Prometheus samaysan karaa koontooyin magacyo been abuur ah oo kumanaan ku gaaraya kuwaasoo ku kala firisan baraha bulshada qaybaheeda kala duwan ama platformyada looga faalloodo ciyaaraha noocan oo kala taas waxay sahlaysaa inay helaan kumanaan kun oo dad comment ka bixinaya ama tacliiq ka bixinaya kumanaan kun oo like saaraya kumanaan kun oo email la diraya kumanaan kun ama malaayiin qof ama malaayiin account oo dad kale u sii fasaxaya taasoo ka dhigaysa barnaamijkan inuu yahay mid aad loo xiiseeyo ama la jecel yahay hase ay yihiin dhammaantood barnaamijyo ka dambeeya haddaba waxaa soo shaqaa kadib haddii ay kasban lahayn 250 milyan asbuuc ugu horeeya waxay laban lahaayeen maalgashigooda 8 jeer 8 maalmood gudahood haddii ay qorsheeyeen ciyaar noocan oo kala 24 saacadoodba waxay si dhaqso leh uga faa'iidi karaan suuqa ciyaaraha $10 bilyan oo dakhli ah yeeshay sidoo kale taliyay mid kamid ah khubarada dhanka security-ga ee teamka Omega ayaa wuxuu u sheegay haddii ay sameeyaan oo ay fasaxaan barnaamijkan oo ka dhigaan mid ayahiisa asagoo go'aan ka gaara internetka intuu isku xariiriyo wuxuu doonana sameyn kara inay laftigoodu aysan qiyaasi karin ayaha barnaamijkan meesha ku dambeyn karo noqon karana laga yaabo mid nafsadooda ama barnaamijkooda khatar ku keeni kara haddaba teamka Omega waxay ku qasbanaan inay la kansalaan labadii barnaamij ay ku fakareen kii koowaad oo ahaa saamileeda ama suuqa stooga kan labaadna ahaa mashruucan waxay hadda koor ka soo sheekeynay ee ganacsiga ciyaaraha kaasoo ay u arkeen mid ka faa'iidi kara lacag fara badan hase yeeshee dhanka amni marka loo eego khatarihiisa keeni kara ugu dambeyn talo iyo tusaale dheer ka bacdi rag teamka Omega waxay isku go'aansadeen inay horumariyaan shirkad media ah ama soo saarta walxaha la daawado la dhageysto aflaamta iyo waxyaabaha madadaalada ee bulshada jeceshahay dabcan mashruucaas oo noqday mid aad ugu guuleysteen sababtoo ah kuma aysan qasbaneyn inay ka gadaan sinimooyinka aflaamta ay sameynayaan ee waxay ku daabici kareen ama ka gadi kareen platformska filmaanta caanka ku ah sida Amazon Prime iyo Netflix ama wixii kale la halmaala
oo bara bulshadeed caan ah. barnaamij ku shaqeynaya garaadka macmalka ee Prometheus oo stookadan ay ku talagaleen tiimka Omega inay ku sameeyaan aflaam waxa u fududeed inuu filim soo doono u fiirsado. sidaan hore u soo sheegnay barnaamijka Prometheus ee ku shaqeynaya garaadka macmalka ah waxa suurtagal u ah inuu daqiiqado ama sikimo aad u yar ku barto macluumaad aad u fara badan. haddaba tiimka Omega waxay ku qasbanayeen barnaamijkoodii Prometheus inay horumariyaan sababtoo ilaa hadda waxa ay bareen wuxuu ahaa sida lacag looga sameeyo mechanical turk asoo qabanaya shaqooyin caadi ah ahaydna lacagtii dhowrka milyan ahayd ay dhaheen inta in ka badan inaan sameeyno ku qasbanahay. haddaba sidee u baran aflaamta waxay ku qasbanayeen inay daawasiyaan filmaan badan. Prometheus oo filmaanta halkii saac ku daawanaya 1 daqiiqo ayaa waxa u suurta gashay 200 milyan oo film markuu daaway ka bacdi inuu asna tijaabiyo inuu filmaan sameeyo waliba kuwa animation u badan. filmaanta uu sameeyay waxay ahaayeen kuwa uu ka soo xiganaya kuwii hore hase yeeshee nooc la mid aan ahayn. heesaha uu qorayay waxay ahaayeen kuwa uu ka soo xiganaya heesayaashii hore ama wax gabayada hore u dhageystay hase ahaatee aan la mid ahayn. qofka markuu filimkan daawanayo wuxuu u maleynaya in hore u daawaday hase yeeshee waa filim cusub, waa xikaayo cusub, waa scenario iyo script cusub oo qofku uu leeyahay waxaan waan garanayaa laakiin sidee ku garanayaa waan xasuustaa laakiin sidee ku xasuustaa. heesuhuna si la mid ah taas ayaa waxay u samaysay tiimka Omega inay ka sameeyaan lacag aad u fara badan iyo dakhli aad u badan. okaadi marka intaas aan ku joojino sheekada aad u dheer tahay macluumaad fara badan iyo xog aad u baran ku jirta laakiin waxaan jeclaa ugu dambeyn inaan soo koobo si aad igu caajisin fadlan. sheekadan aan ka soo xigtay buugga Life 3.0 ee uu qoray qoraaga physician-ka iyo macalinka ka shaqeeya jaamacadda MIT. sheekadan ku qoray hordhaca buuggiisa aan hore u soo xusay. qoraaga oo buuggan ku xusaya inuusan sheekadan ku soo alufin maskaxdiisa iyo khayaaligiisa ayaa yiri wuxuu la kulmay kumanaan kun oo ah dadka ka shaqeeya tiknoolajiyadda ama horumarinta tiknoolajiyadda caanka loo yaqaano garaadka macmalka ah oo ah dabcan af Soomaali erey jacburan badan iska adeegsado laakiin Ingiriiskiisu yahay artificial intelligence. sheekada gabagabadeedu wuxuu xusayaa tiimka Omega ee ugu dambeyn go'aanka ku gaaray inay sameystaan shirkad media ah ee aflaamta sameysa inay horumar aad u ballaaran ka gaareen waxa aflaam dunida jira ay sameeyaan programyada iyo wax kasta la soo tabiyeen ay gacanta ku hayaan lacagii ay faraha badan ay ka sameeyeen shirkadaha yaryar ee la midka ah ama majaalkooda kula jira gacanta ku dhigeen ka bacdina lacagtii ay meesha ka keenayeen hantidii iyo maalkii ka sameeyeen si toos ah ama si dadban ay dadka ugu saameeyeen noloshooda ha noqoto dhinac wanaagsan dhinac xun. taasoo u sahashay sidoo kale in dadka hantida ay siinayaan awgeed ay ku kasbadaan codkooda kuna xukumaan dunideeda. sheekada gabagabadeedu wuxuu xusayaa in markii ugu horeysay abid la helayo tiim ama koox wada socota oo dunida xukumay oo halkooda hadal, halkooda qaraar iyo halkooda fikir si wada jira u wada socodsiinaya. sheekadan waa sheeko xariiro, waa sheeko madadaalo ah, waa sheeko xaqiiqada aan raad la lahayn waqti xaadirka hadda la joogo laakiin ma garan karno hadii marna ma garan karno. laga yaabo Omega laftigooda ayagoo magac kale leh in adduunka meel ka mid ah joogaan maanta oo hadda ay daareen. laga yaabo muuqaal aad maanta daawatay ama aragtay la mid ah in koox noocaas kala samaysay ama ay dunidan saaran yihiin ma kala garan karno laakiin markasta waxaan ogaanaynaa in cilmiga iyo aqoonta insaan sameeyay ay tahay mid kasta midda ugu saameynta badan. mar labaad ka fakar. Assalaamu calaykum.